السلام عليكم ماني wanaagsan meel waliba ee aad dunida ka joogto waxa uu u muuqdaa geesi waa fulay kaasi waa doqon aan dantiisa aqoon ogow ninkaasi waa aqoonyahan ma midkaas warkaasi waa gabdha ku dheel waxaaba iiga daran kibirkiisa ama kibirkeeda kuwaasi waa dhammaan aragtiyo kala duwan oo ay muujinayaan dad aad adiga shakhsi ahaan u taqaano ama xitaa aadan ba aqoon u lahayn oo maanta way sahlan tahay in qofka noloshiisa wax uun laga ogaado sababo baraha bulshada lagu xiriiro darteed ma waxaad la yaaban tahay sida dadku adiga ku arkaan waxaad isku dayaysaa inaad si aad ugu yaraan u noqoto qof ay ku qanacsan yihiin waad labisanaysaa jirdhis baad samaynaysaa waxaad soo bandhigaysaa dhammaan wixii aad ku wanaagsan tahay waxaad isku dayaysaa inaad u muujiso inaad dhab ahaan tahay qofkii ay saaxiibadiisa ama xitaa dadku u arkaan midkii ayaga ku habboonaa ayaga dartood ayaad u dhafartaa ama u saamaleyshaa qofba sida u yaqaano markay kuu baahan yihiin waa ay ku helaan balse dhibka wuxuu yahay weli waxaad dareemaysaa in wax uun qaldan yihiin haa waa runta oo waxbaa qaldan sababtoo ah waxaad wax ku dhisayso oo dhan waa inaad isbeddel ku samayso aragtida adigu dadka ka haystaan balse tolow dadku ma ka qanci doonaan aamin si kasta oo aad ugu dadaasho inaad wax waliba u sameeyso si dadku u arkaan inaad dartood u dadaalayso adiga un baadaali doona aadanuhu marna lagama eedbeelo oo haddii aad isku daydo inaad danahaaga ayaga dartood u dayso waxay ku dhihi doonaan waa dan laawe haddii aad adiga taada fiirsatana waxay kugu eedi doonaan inaad daniista weynaada tahay taasi waxaaba ka sii cajiibsan marka aad mar waliba ayaga uun u taagnaato oo aad wax waliba u samayso maalinta aad awoodi weyso inaad ayaga wax uun u qabato qaarkood ma dareemi doonaan inaad aadana tahay oo waxay si aan gambad lahayn kuugu muujin doonaan inaad uun tahay qof aan ayaga muhiim u ahayn haddayba sidaas tahay maxaan nafteenna ugu qiimeynaa aragtida dadka kale u fiirso maanta heer waxaan maraynaa sawiradeenna baraha bulshada haddii ay heli waayaan falcelinno badan waxaan ka shakinnaa inay annaga wax naga qaldan yihiin iyo in kale oo dadka noo dhow ayaan weydiinaa sida ay wax u jiraan sidoo kale marka aan howl rabno inaan bilowno ama xitaa isbeddel ku samayno nolosheenna waxa qasab ah inaan ugu yaraan helno dad noo sheega ama aragtiyadooda noogu muujiya si ay qiimo noogu yeeshaan isbedelada aan samaynayno balse dhabta waxay tahay in aragtida dadku kaliya ku kooban tahay aragti saameynta aragtidaas noloshaada ku yeelan doonta cidda go'aankeeda lehna ay adiga tahay aragtida dadka kale oo aad noloshaada ku dabaqdo waxay ku gaarsiin kartaa heer aad jiritaankaaga oo dhan ku dhisto sida qof hebel kuu arko oo waxaad isleedahay qofkan yuusan kuu arkin inaad qof noocaas ah tahay ka cabsashada aragtida ama fikradaha dadku ka aamini doonaan waxay ka hor istaagtaa wax badan oo aad xaqiijin lahayd qaarkeen waxay noloshooda dib ugu dhigeen sida reerka ama qof hebel u qanci lahaayeen balse tolow ayagu ma qanacsan yihiin maanta kuwa sidaas sameeyey yaysan waxba walwalin weli waxay haystaan fursadda ah inay hadda kadib ka fiirsan doonaan waxyaabaha dhabarjabka ku noqon kara farxadooda u fiirso waxaan in badan aragnaa dad wax samaynaya ama xitaa jaamacad ka baranaya waxaysan awoodin oo aysan ayaga dooran kuna leh waxaan ku qancinayaa walaalahay oo lacagta bixiya ama saaxiibaday dartood baan u samaynayaa arrintan laakiin aan iyaga ku qanacsaneen allaha adiga ku abuuray dusha kaamuu saarin waxaadan awooddaada ahayn siday doonaan dadka ha u fakiraan adiga waxba kaama gelin aragtiyadooda iyo caqliyadoodaba waayo kuwa maanta kuugu sacabtumaya inaad garab taagan tahay ayaa laga yaabaa isla iyagaas inay berritooda kugu tilmaamaan waxaadan adigu ahayn oo si kasta oo aad isugu daydo ahaanshiyaha sida dadku kaa rabaan kuma guulaysan doontid oo waxaa jirta xigmad carabi ah oo leh rida naasi ghaayatun laa tudrak oo micno ahaan noqonayso raaligelinta dadku waa yool aan la gaarayn ugu dambeyn dadku marna ma joojin doonaan inay kugu dhaliilaan wixii aad u samaysay oo aan ahayn siday iyaga rabeen ama inaad qof dantiisa yaqaano oo keliya tahay marka noloshaada adiga iska leh u noolaaw sidii ilaahay kuugu talagalay inaad u noolaato cidnaha ka sugin inay ku qanacdo waxa aad samayso hubaal waxaa jiri doona dad ku qanacsan qofka aad adiga tahay iyo weliba sida aysan kuu qusaynin waxa dadku kaa sheegi doonaan ama xitaa kugu dhaliili doonaan ogow dadka waxaa ugu liita kuwa noloshoodao dhan ku dhammaysta ayagoo isku dayaya inay qanciyaan dad kale ahaw qof ku qanacsan waxa uu yahay ciddii doontaha kugu tilmaamto waxay doonto intaba aad adiga noloshaada ku raaxaysanayso wax saameyn ah kuguma yeelan doonto aragtidooda si fudud u dheh waad ku mahadsantihiin aragtidiinna anigana waxaan ku leeyahay waad ku mahadsan tahay inaad ila soo gaartay intaan waxaana kuu rajaynayaa waqti aad u qurux badan